siyaasi maxamed cabdi jaamac oo kamid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee reer Somaliland waxa uu ka hadlay shirweynihii afraad ee ka dhacay caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaanu sheegay in khudbadii madaxweynaha Somaliland uu ka jeediyay shirkaasi ay ku jireen hadallo badan oo cagajuglayna siyaasi Dhimbil waxa uu sidoo kale ka hadlay xubnihii kamidka ahaa shaqaalaha dawladda ee ka soo dhex muuqday shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxa aniga ila muuqday barnaamij qoran oo qof soo qortay oo sidoo soo dhigtay lagu sharciyeynayo oo nidaamka u socda marka loo eego qaabka shirweynayaashu waxaan jireen hadii aan ku yar noqdo maadaama ay weydiisay shirweynaha hadalkii madaxweynaha maalintii uu shirka furay hoga tusaaleyn fara badan in ummaddu isdhex gasho waxyaabo badan oo wanaagsan baa ku jiray dhinacna waxa kaga jirtay hanjabaad ciidan ka badan warbaahinta siyaasadda siyaasiyiinta dad fara badan oo hanjabiyo xeer baan samaysan doonaa idima hadli karto waxyaabo badan oo noocaas ah marka anigoo waliba dadka u arka inaan xisbiga kulmiye dadka meel rajada ku wadin waxaan aaminsanahay inuu musabixiyo xisbigiisu aragtida one party systemka inuu nagu wado hal xisbi inuu naga dhigo dalka hadalka madaxweynaha waxa kamid ahaa kulmiye markii mucaaradka ahaa waxa uu ahaa mucaarad dawladda Dhimbiil ka kiciya taas waxa aniga macna ahaan igu muuqata inuu leeyahay maanta mucaarad ma jiro waxa tir barnaamijkan xisbiga shirweynaha xisbiga kulmiye wax idin soo qoratay yadleed markaa way soo qoratay intee waska cadda hadii sanu soo qorshaysatay waa cid lagu doortay meesha wax isweydiin u baahan maaha Somaliland way ogtay horta Somaliland sharciga iyo habdhaqanka kala duwan still waxa lagu jiraa dabaqaadda sharciga waxa la inoo sheegay iyo habdhaqanka dalka yaala aad bay kala duwan agaasimayaashu waxay kamid yihiin qolaysa dhexe xisbiga wana shaqaale marka wadanku wuxuu baahan rule of law lagu soo celiyo oo aragti cusub timaado oo dadka reer Somaliland laga saaro nidaamkii axsaabta iyo ururada iyo dimuqraadiyadda ahayd waa laga beeray in aynu waxaan ka duwan helno oo structural waxaad moodaa qaab dhismeedka axsaabtu shalay ugu dambeysay kala soo gabagabeeyay in reer loo qaybsaday bad moosa dhaqankaasi wax Somaliland si wadi karaya ma siyaasi maxamed Dhimbil oo hadalkiisa sii wata waxa kale uu sheegay inaanay dalka ka jirin xisbiya mucaarida waa sida hadalka u dhigay waxaanu ku baaqay in ururada siyaasadda la furo anigu maanta marka halka aan taaganay la marayo saddexdooda hal xisbi baan waqaanaa sababta oo ah Somaliland axsaabta mucaaradka waxa loo sameeyay in ay xukuumadda jirta iyo xisbiga talada hayaan nidaamka ku hagaan waxay arkaan sheegaan dhaliisha sheegaan toosiyaan marka Somaliland marka aad eegtay waa one party system waayo dhamaantood way aamuseen hal qodob baana dadku fahansan in maanta loo tashaday oo shacbiga Somaliland anigu min bari ilaa galbeed waa soo maray dadka daneynaya in ururada loo furo aan kamid ahay marka dadka reer Somaliland saddex xisbi kuma qanacsana waxaana dhow xilligii ururada siyaasadda la furi lahaa ujeedada marka ujeedada ay u aamuseen axsaabta mucaaradkii waxa loo arkayaa inay ka baqayaan in ururada siyaasadda la furo Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa